muddadii uu hayay sidii uu qiimahoodii qabkoodii qarannimadoodii ciidankoodii qalabka siday uu u dhisi lahaa taas oo runtii uu guulo weyn uu ka gaaray farmaajo qofka Soomaaliga ah oo maanta taageersan law yacado ilaa raas Gambooni kuma taageero reer ahaan kuma taageero wax qabad buu ku taageeraa farmaajo waxa ka go'an dalka inuu doorasho qabto dadka in talada lagu celiyo one man one vote waa in daawanaya caawo waa in daawanaya isagii Roobleba one man one vote waddanka inuu ka qabto laakiin waa laga hor istaagay iyadoo laga baqayo haddii talada dadka dib loogu celiyo waxba yaa la soo dirin waxba yaa rasaasta billahi inaka dhamaynina inoo kaadiya mobilada buuxiyaha soo dirinna si iyadoo laga baqayo madaxweynaha haddii one man one vote loo isaga loogu wada shubayo waana dhacaydo waa loogu shubnaa isaga loogu shubnaa kabacdi wuu tanaasulay tii dadbanayd buu qaatay tii dadbanaydna waxa la yiri waa inoo ka adkaanaya intii waxa weeye waa si walba waa loo qodqoday ilaa uu yiri shaqada faraha ka qaadaya ee Roobla darwaay ra'iisul wasaaraheennii hore shaqada laga joojiyay Rooble madaxweynaha keenay waddanka madaxweynaha la doortaa ra'iisul wasaare lama doorto madaxweynaha waxa laga rabaa siyaasadda uu dadka Soomaaliyeed ula yimaado ku jihaynayo balanqaadyada uu sameeyo waxa uu rabo dadka inuu u qabto inuu soo xusho ciddii hawsha uu u igman lahaa oo shaqada la qaban lahayd oo wasiir leh oo ra'iisul wasaare leh oo taliyaal leh madaxweynuhu ra'iisul wasaare oo khayr soo magacaabay muddo wada shaqeynayeen isfahamaa markii dambe dhacay dartii iyo shaqadii oo xoogaa maartay lagu yimi xaqii dimuqraadiyadda baarlamaankii baa khayre xasaanada ka qaaday madaxweynuhuna waa ku raacay Rooble madaxweynuhu magacaabay Rooble mas'uuliyadda ugu weyn oo saarneed waxay ahayd waddankan inuu doorasho ka qabto oo uu doorasho ka qabto madaxweynuhu waa u igmaday madaxweynaha isaga xaq u lahaa inuu doorasho qabto laakiin awoodihiisii wuxuu ra'iisul wasaaraha si iskii aqaarkood gacanta ugu geliyay iyadoo ay dastuuri tahay madaxweynuhu ciddii uu rabo shiira culayna allaha ka dhigay inuu hawl u idman karo ra'iisul wasaaraha wuxuu ugu idmaday hawshaas si doorashadaasi u noqoto mid aan madmadow lahayn bacdama uu isagu yahay musharax Rooble siyaasadii madaxweynaha kuma shaqayn dantii qaranka kama shaqayn wadadii madaxweynuhu jaxay ma qaadin Rooble shaqadii ugu horeeyay macal asaf uu qabto waxay ahayd muddadii 4 sano ahayd qiyamkii iyo qabkii iyo qiimihii ummadda Soomaaliyeed madaxweynuhu soo celiyay oo gaalaya islaam jirtay inuu ku tuntay duhur cad inuu Nairobi diyaarad u raacay Uhuru Kenyatta sakadudi badii nagu haysta iyadoo doodii maxkamaddu ay saaran tahay taagan tahay inuu macuus u soo xiray isagoo kaga sasabanayay wiilal ay isku jifan yihiin in qaadka loo soo daayo loo xiro isagoo ku marmarsiyooday arrimo ganacsi baan soo galeynaa annagoo og Kenya badeecad aan qaadahayn inayna kala soo digin ra'iisul wasaaruhu intaa kuma ekaan arrintii doorashada waa ku fashilmay wax ilaa uu gaaray madaxweynuhu inta uu dulqaadanayay in uu xeradii ciidanka badda Soomaaliyeed dhisto madaxweynuhuna waxa way taliyay ciidanka markuu soo qayliyay taliyay ciidanka badda uu yiri xeradii baa la dhisanayaa ra'iisul wasaaruhuna uu afkiisa ka sheegay afayeenkiisii difaacaya Bashir Goobe uu yiri meel banaan bay ahayd xero ciidan ma ahayn annagoo og magaalada Muqdisho meel banaan inaysan jirin haddii xataa banaan tahay ay tahay dhul dadweyne dawladda hoose ay tahay cidda dhulka bixisa shiina culimaanta taako magaalada Muqdisho aan lacag rasin kama heli karo aniga ra'iisul wasaaruhuna waddanka waa inaan isku xaq u yeelano waa inuu dastuurka ilaaliyo madaxweynuhu markuu arrimaha oo dhan arkay doorashadii inay istaagtay arkay xaaladda waddanku inay maartay qir taagan tahay ra'iisul wasaare inuu noqdo nin labada dhinacba laga maarayo dhinacna shisheeye kaga shaqaysanayo dhinacna dad qowlaysataha oo danastiyaal ay kaga shaqaysanayaan madaxweynuhu isagoo waajibaadkiisa dastuuriga gudanaya oo ay ka mid yihiin ciddii uu rabo inuu xil u dhiibo ka hakiyo ama ka qaado waxa uu shaqada ka joojiyay si ku meel gaar ra'iisul wasaaraha inta la baarayo kiiskiisa ama ku cadaamayaan ama laga bariyeelayo madaxweynuhu arrinta xaq u leeyahay Rooble ra'iisul wasaare ugu horeeyo shaqo laga joojiyay ma aha kuwa ka horeeya la eriyay isagana hadii wax ku cadaadaan waa la eriyay geed ba ka weyn ra'iisul wasaare madaxweynaha ka weyn madaxweynaha dadka ugu hanjabaya meesha xoog ku joogaa waddanku waa Soomaaliya dagaalo sukaya ka dhacay doorashadu weligeed dib dhici jirtay
dastuurka sida ugu qoran tahay 4 sano buu madaxweynuhu haynaya baa dastuurka waxa ugu qoran madaxweynaha waxa xilka yaa la soo diray dastuurka waxa ugu qoran madaxweynaha ilaa madaxweynihii bedeli lahaa la soo doorto kursiga isagaa sii fadhiyay si aan firaaq u dhicin xasan sheekh baa shalay sii fadhiyay sheekh shariif baa sii fadhiyay ayaan darooyinka dhacay waxa ka mid ah sheekh shariif cid uma hanjabay xasan cid uma hanjabay farmaajo waa loo hanjabaa waxa lagu haystaa waa qabiil laakiin annaga waxaan leenahay madaxweynahaasi astaan qaran weeye dadka Soomaaliyeed intooda caqliga u saaxiibka ah qof kasta ahaatee isagay taageersay laakiin kuwa caqliga ka faaruqa haddii doonaan isaga difaac la ahaadeen waa kuwa caamiliinta sheeya ah problem wadada kula socda waqti waa ka dhacay shina waa maasan tahay anigu waxaan isku dayi doonaa 5 minute wax ka yar inaan ku soo gudbiyo aragtideeda horta intaad rooble ka sheegtay anigu hadda rooble ma difaacayo ummadda Soomaali baa og hal su'aal baan ummadda weydiin doonaa markaan dhameeyo hadalka waxaan xasuusin mudan dadka wax soo diraya waa u jeedaa waqtigii 5 minute kadib baan toos game ku bilaabeynaa waxaan isku dayi doonaa waqtiga ugu yar ee khudbadeeda caawa inaan before game-ka aan idiin sharaxo sababta reasonka iyo wax ka duwan waxa saaxiibka Shiina culay sheegay horta Shiina adigu mid baa ku leeyahay ra'iisul wasaaruhu ma taliya nabad sugid oo madaxweyne xilka ma qaadi karo dastuur ay ku qoran taana nama soo marin nooma soo socdo haddana ma haysano horta intaas dib ugu laaba dastuurka wuxuu u baahan yahay dib u akhrin ra'iisul wasaaraha waxa xilka qaadi kara baarlamaanna hadda ma jiro madaxweynuhu kama qaadin shaqada ay iga soo dhaxgelin haday waa ku dhageystay warkaaga anoo rabin aan dhageysanaya isagoo dhinaca u socdo waayo ma santahay horta maxamed cabdullaahi farmaajo marka la yiraahdo dadka reer muqdisho nacab ama qabiil uga soo horjeedo waxaan uga jawaabayaa hal second waa kuwii shalay u masxaraday halkaas iga dhigay waxa soo hartay maxamed cabdullaahi farmaajo markii extension uu isku dayay isagoo islaa dadka muqdisho degan iyo ummadda Soomaaliyeed waa jiifaan hadda kadib iyo dagaal lama rabaan ummadda waxay isdhaheen in la gumoobo in la dagaalamo kebaad qaadanaysaa in la dagaalamay qaateen taa waa kow tan labaad ra'iisul wasaare Rooble waa ninkii maxamed cabdullaahi farmaajo badbaadiyey ee yiri war suugaan iyo dhishiikiyaashan meel dhigta ummadda Soomaaliyeed ninkan ana la hadlaaya hubka hal celiyo maantana waa ninka kaliya ee maanday dalkan ka haysta ee dalkan ka ariminaya ee waliba wax laga sugay ku dheeran ma hadalkayga cid kasta oo halkan joogto waa duuban kartaa mid laga shalaynayo ma